waxbartaan 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 barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan okay waxaan tagayaa borders kadib waxaan leeyahay all borders hadda wuxuu ii siiyey all borders oo ii siiyey waxaan rabaa inaad xog ku qorto number 1 number 2 markaan raba inaan hoos u dego waxaan taabanayaa filaarta hoose number 3 hoos aan u degaa number 4 hoos aan u degaa number 5 okay nameska marka aan qoro Ali Ahmed Hasha Omar Osman data yara gashanina waxaan CF AS WS okay marka xogtaas aan qorano waxaan rabnaa inaan kulli xogtaan border wada siino waxaan sameynaysaa waa highlight garaynaysaa highlighting see loo sameynaa kan koowaada click ku siinaysaa marka click ku siisid adoo click lahaaya ayaa hoos u soo jiidaysaa marka hoos soo jiidid oo ku highlight garaysmaa saarano kale intiina highlight gareeyaa rabaa hadda inta click siiyo one row ayaa highlight garaysan hadda laakiin intaas jiido waxay highlight garaysan inta hadda ii dooran ay highlight garaysan sideen ku ogaa karaa marka inta highlight garaysan inta waxaan ka bilaabayaa meesha ugu geesaysaan ka bilaabayaa kadibna hoos u soo wada anigoo clickta sii deynin qaybta name boxka haddaa fiirisid waxaa ku qoran 6R iyo 4C maxaa laga wadaa waa 6 row iyo 4 column ay highlight garaysan haddaa inta column kale ku daro wuxuu leeyahay 6R iyo 5C oo ah 6 row iyo 5 column ay highlight garaysan haddaa sii deeyo kan ugu horeeyo ayuu sheegaya magaciisa laakiin intaan ay highlight garaysan in highlight garaysan intaas ku ogaana waxaa saaran color yar oo madow okay intaas marka highlight garaysto waxaan furanayaa qaybta border optionka kadibna waxaan leeyahay all borders aan dooranaa waxaan rabaa saan oo kale magacaan oo kale inuu dheeraado telko kale inuu dheeraado laga yaabaa addressko kale inuu dheeraado laga yaabaa noogo kale inuu yariyaa laga yaabaa sidee marka aan u yareeyaa rowga ama columnka u yareeyaa rowga kee waaye rowgiska waa kuwana this is rows columnskina waa kuwana hadda no iyo name iyo tel iyo address waa columnyadeena rowyadiina waa kuwana waa cali axmed iyo caash okay marka waxaan rabaa no kalena isku soo yareey marka inta aad joogtid oo falaarta ay kuu tahay balastan oo balaasta cadaanta ah oo caloosha u weyn tahay waa highlight gareen aad diyaar u tahay markasta oo muuskaagu uu wato balaas cad wuxuu diyaar u yahay inuu wax highlight gareeyo ama wax doorto selection markasta oo muuskaagu yahay afar falaarood oo afarta dhinac ujeedo waa move saarano kale item oo kale haddaad soo dhigtid ama sawir aad soo dhigtid afarta falaarood wuxuu noqon doonaan inay move u diyaar u tahay waxaa kaloo jira balastaas yariista ee madowga wuxuu diyaar u yahay in copy uu ku sameeyo selleska kale saarano kale hadda balas aad jiido aan hoos u jiido iyadoo balastaas madow tahay wuxuu number salkii ii doornaa ayuu copy ugu sameynaya ilaa salalka aan soo maro dhan kulli halkaas sal wada garaa marka balaaskaas waxyaaba badan loo isticmaalaa in formulayaasha lagu koobiyeeyo sanadka hal formula waxaa ku samaysatay hal cell kadib cells kala ka hooseeyo dhan waxaa rabtaa inaad ku koobiyeysid kadibna balaastaas madowga markaad keli ku siisid ayaa hoos sameynaysaa
qaybtaana waa qaybtii highlight gareynta marka waxaan rabaa ani marka meesha u socdo waxay ahayd inaan kolomyadan aan yareeyo ama aan weyneeyo waxaan sameynaa marka waxaan tegayaa columnka korkiisaan tagaa columnka labada column ee C iyo D intuu dhexeyso markii falaarta ay noqoto falaar plus madow oo luga dheer leh labada dhexena ee falaara madax leeyihiin labada korena ee waxba lahayn oo ah labada dhexe falaara loo sameeyey inta u kala jiidi kartaa waa midig iyo bidix u kala jiidi kartaa noqdo haddii row aan doortana kor iyo hoos u kala jiidi kartaa oo ah falaarta kore iyo falaarta hoose ama labadooda madax loo sameeyey marka qaybtan oo C-da iyo D-da u dhaxaysa aan kali ku siinaa haddaan inta u jiido columnkaasi wuu weynaanaa haddaan inta u soo jiidana columnkaasina wuu yaraanaa columnka hadda waa soo yareenay columnka hadda D iyo E inta u dhaxaysa caraba inaan weyneeyo name-ka iyo telka oo ah columnka D iyo columnka E inaan kala jiida rabaa oo weyneeyo dhexdoodaan tagaa falaartii markay ii samaysmato aan ku ogaay falaarta oo resizing-ka ah oo insaaskii ii weyneeya aan ku ogaay aan keli ku siinaa keligda anoo hayo intaa u jiidaa dhankaa rabaa u jiidaa ilaa intaan rabo cabirka aan qiyaaso karo aan ku deynaa telkoo kale sidoo kale sameynaa E iyo F dhexdooda tagaa waa jiida adresskoo kale E iyo F dhexdooda tagaa kadibna waa jiida waxaa ii samaysmaday table aada u qurux badan oo name-ka aan ku qori karo afar magac ama 3 magac telka aan ku qori karo numberkoo dhammaystiran adresska hadduu kugu sii yaryahay hadsana waa sii jiidi kartaa oo aan ku qori karto adress kamila marka waxaa noqon doonaa table aada u qurux badan waxaa kaloo samayn karaa columnka kore maadaama uu yahay columnkan maadaama uu yahay ciwaan waxaan samayn karaa formatting oo sida data aan soo aragnoo kale kan markaa keli ku siiyo keligiisa bedeli karaa oo markaan dhaho qaybtan fill color c keligiisaan siinaa laakiin haddaan rabo control z haddaan rabo kulli hamarna sida wada siiyo selectiona ku sameynaa qaybta kore hadduu lokasaan iga yahay row kale ay igaga darsan row kale waan ka soo celinaa rowgan kale aan ku deynaa markuu intaas ii halaad garaysan tahay waxaan rabaa marka inaan furo fill colorka aan rabo aan siiyo colorkii ugu qurux badan colorkii la qurxnaato bulugoo kala siiyey farta lama arko farta waxaan ka dhigayaa doonaa caddaan ama jaalle markaas wuxuu kusoo bixi doonaa si aada u qurux badan row kasta waxaan sii karaa color gooniya rowgaan oo kala doortay fill colorkaan tegaa waxaan siinaa colorkaas cagaarka khafiifka ah rowgaan kalaan doortay markaan dooranaya kan ugu horeeya keligiis haddaan dhexda ka bilaawdid sananka markaad doonaysid kan axmed oo kale haddaan ka bilaabo dhexda aan intaas doorto oo aan color siiyo qayb dhexoo kaaga bilaaba mar walba aa wax bilaabaysid meesha ugu horeysa ka bilaab ama meesha ugu dambeysa ka soo bilaabo ee dhankaa usoo soco labadaba waa isticmaali kartaa markaa midka ugu dambeysa geysid aa sii dii kartaa okay asana color kale siiyey kanaan doortay asagana waxaan siiyey color kale marka waxaan rabnaa bas inaan ku ogaano meeshaan sidee fill color loo siiyaa row ama cell ama column sanoo kale columnkan oo kale waxaan rabaa hal colorna isku wada siiya columnkia dooranaa kadib waxaan leeyahay hal color sii color kale baan u dooranaa haddaa madow aa u doorto madowgoo siinaa fartoo kale caddaan ka dhigo caddaanoo ka dhigaa waa kaas okay control z hadda iga dheh muu baahan marka hadda waxaa soo baranay copy sidii loo isticmaalo cut sidii loo isticmaalo bold italic underline sidii loo isticmaalo kan oo kale underline kuga 2 options uu leeyahay oo double underline iyo underline caadiya waxaa kaloo jira font color font type inaan bedelo sanoo kale cellkan oo kala doortay font type waa kana waxaan ka dhigaa Times New Roman font type waa bedeshmay laakiin kuwaan kale maysan bedelmin hamarna isku bedelaadaan rabo waxaan sameynaa waa highlight gareynaa rowga dhan kadib waxaan tagaa meeshan waxaan leeyahay Times New Roman ama area lan ka doornaa adii fartaan fartii ku anfacdo
مدارك كدورة كرتا تانو كلا دورنا اوكي انت انا كلا دورنا فوينت تاب كود ايانا نوع كلا كديك انفرا الجيريان كان كديكا بركوا كاسا كنترول زد اوكي marka font type iskana sidaas loo bedelaa waxaa kaloo jira in fartan ciwaankan oo kale inaa waaweyneeya rabaa oo fonti aan wax ku daro ama aan wax ka yareeyo qaybtan aa u jeedaan nambarada hadda fontigan size-keedu waa font 11 haddaan rabo inaan ka weyneeyo 12 aan ka dhigi karaa waxaan ka dhigi karaa 14 haddaan rabo intaan iska tiro aan lambar aniga rabo ku qoran karaa 30 oo kale ku qoran karaa inta alle 30 ay noqonay intoo kale waxaa cilad ka soo baxday in roogii uu ku yaraado waxaan sameynaa meeshii aan slowgeena tagaynaa oo click ku siinaa kadibna waa jiida ilaa oo column kale ka ama haddii kale waxaad sameyn kartaa control z intaan dhaho markaan rabo inaan cabirka aan la simo jiidisna aan rabin waxaan sameynaa markaan aan intaas ku aadiyo labada column dhexdooda aan joogo oo falaarta ay sidaas igu soo muuqato double click aan ku siinaa automatically asaa cabirka saxaya adres oo kale waxba maqan wax yara maqan meeshaas ku aadina kadibna waxa leeyahay double click automatically oo qoraalkii oo fit oo ku fit garooba okay intaan highlight gareena haddaan rabo inaan iska yareeyo anoo number inaan qoran rabin numberna aan ka weyneeyo rabin laba a ama meesha ku qoran a weyn iyo a yar a weynta waa maxay size ku sii dar a yartana size ka wax yar ka yareey qaybtan kale waa alignment-igi waa maxay waa left-ka keen right-ka keen oo dhinacaana oo dhinaca midiga left-ka keen oo dhanka bidixe center dhig oo center qaybta dhexe dhig qaybtan waa top iyo bottom cell-ka laftirkiisa marka rooga weyneysid ayaa arki kartaa rooga kala weyneeyay waxaan sameynaa marka qaybtan waa bottom hoos dhig waa qaybtanna waa center dhig oo qaybta dhexe qaybtanna waa top dhig qaybta kore dhig kuwana waa alignment-igi oo left iyo right iyo center rowga haddaan rabo inaan yareeyo labada row dhexdooda tagaa kadib markay calaamadii noqoto waa soo jiidaa waana agtooda dhigaa okay waxaa kaloo jiro meeshaan oo kale inaan ciwaan aan siiyaa rabaa ciwaan inaan ku qoro oo salis tusaanaan oo kale waxaan rabaa inaan ku qoro jaamacadda muqdisho jaamacadda haddaan rabo inaan weyneeyo waxay ku dhex jirtaa rows badan cells badan ay ku dhex jirtaa marka waxaan rabaa cells-yadaas oo dhan hal cell inaan ka dhigo kaasoo kale waxaa loo yaqaanaa margin center control x dheh qoraalkan kad iisoo dheh hadhowta marka waxaan rabaa intaan inaan isku jebiyo intaanoo cell inaan isku jebiyo waa margin waa maxay isku fur margin isku fur marka margin and center intaan u isticmaalaa margin and center waxaa loo isticmaalaa marka la isticmaalayo ciwaanadoo kale excelkoo kale maadaama uu calculation yahay ciwaanoo kale markaa u isticmaalayo waxaa isticmaali doonaa margin and centers okay intaanoo kale waxaan rabaa inaan ciwaan sameeyo intaas highlight gareena kadib waxaa leeyahay margin and center hal wuxuu ka dhigay hal cell oo ka dhigay one cell oo ka dhigay cellkaas aan double click ku siinaa kadibna qoraalkiigan ku qoranaa si qurux badan ayuu soo qoray qoraalkaas alignment-giisa sidaa raba u saxa karaa marka left aan ka dhigi karaa right center sidaa raba cellkan laftirkiisa waxaan sameyn karaa waxaan sii karaa fill iyo color fill waa maxay cellka in color siiyo colorna font colorna fontiga ina color siiyo fontiga hadda madowga ku deynina madowga kusoo baxa haddaan ku muuqda okay raabta kasta maxaa loo isticmaalaa raabta kasta waxaa loo isticmaalaa tusaalahaan oo kale cell wax ku qoraysaa cellkaas wuu ka sii baxa tusaalahaan oo kale qoraal badanna ku qortay hartaa qoraalka wuu ka baxa marka maxaa samaysaa qoraalkaas inuu cellal kale u gudbin haddaa rabtid raabta kastiyaa leedahay cellkii ayuu ku ekaanaa weliba hoos uu sii gudbinaa haddaa inta sii weynaysid oo sii ekaanaa
margin and center waxaa loo isticmaalaa in dhowr cells la isku jebiyo wrap textina oo kan wrap textigana waxaa loo isticmaalaa in maadaama haddii aad rabtid inaad cell wax ku qortid cellkaas uu ka gudbaayo in cellkaas uusan ku gudbin oo cellkaas ku ekaado wrap textiga oo isticmaalaysaa qaybtan waxaa nooga dhiman oo aan rabnaa inaan sheegno markaan qoraayo nambarada 1 2 3 4 cell markaan ku qoro waxaan sii karaa dhowr options waxaan ka rabaa number waxaan ka rabaa currency oo lacag ka dhig qaab oo waxaa ka dhigtaa date ka dhig long date ka dhig time ka dhig percentage ka dhig fraction ka dhig waxaasoo dhan intaas option inaad sii kartaa saanaanka lacagtaan oo kale waxaa rabaa inaad dollar siiyo waa kana lacagta dollar sidaas siinaa ama percentage aa sii karaa percentage waa kana intay i yaalaan intana ay ugu jiraan okay qaybtan waxaan ku baranay different worksheet iyo different workbook iyo different worksheetskiisa kala duwan iyo sidaan worksheetyo u samaysano waxaan kaloo ku baranay interface guud workbooka waxaan kaloo ku baranay tabiska waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan barwaaqo gaarane